بسم الله الرحمن الرحيم caawa waxaan ku yeelanay shir magaalada gaalkacyo xubnaha golaha wasiirada iyo la taliyayaasha intii ka joogtay waxaan aad u falanqeynay xaaladda dalku marayo iyo waxyaabihii dhacdooyinkii u dambeeyay maalmihii u dambeeyay soo baxayay shirkeenni kadib waxaan rabaa inaan soo ururiyo hadallo kooban oo ku aadan mowqifka dowladda Puntland waxaan marka ugu horeysaa halka ka xusaya muddo 2 week ah ayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo waxaan joognay magaalada Dhuusamareeb halkaas oo aan uga qayb galnay 2 shir oo kala duwanaa shirka koowaad oo ahaa shirkii ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka way ku falanqeeyeen xaaladda dalku marayo diiradana ay ku saareen arrimaha doorashooyinka iyo waxa la gudboon kana soo baxay warmurtiyeed la akhriyay laguna baahiyay dhammaan warbaahinta kaasoo si cad u cadeynayay mowqifka dowladaha xubnaha ka ah ay u arkayeen marxaladda doorashada ee soo socoto waxaa sidoo kaleeto furmay oo shirkaas horena lagu cadeeyay in laga codsaday madaxda dowladda federaalka ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ka soo qayb galaan shir labaad oo wada tashiga ballaaran laga gelayo shirkaas dambe oo muddo dhowr beri ah socday wuxuu ahaa fursad waxaa runtii madaxda dowladaha xubnaha ka ah dhammaantood oo anigu aan ku jiro u muuqatay in niyad sami ah in dalku marxaladii hore iyo walaaci aan ka qabnay in uu meel khatar ah uu ku socdo maadaama ay noo yimaadeen madaxdii dowladda federaalka ah in xal waara laga gaari doono arrimihii markaas taagtaagnaa muddadii shirkaas uu socday waxaa jiray shirar duceedyo gaar u ah madaxdii halkaas ka soo qayb gashay oo si guud iyo si gaar ba u socday waxaan rabaa inaan ka xuso muddadii aan joogay waxaan la yeeshay 2 shir oo gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hal shir oo gaar ah ra'iisul wasaaraha 2 shir ayaa aniga iyo madaxweynaha Jubbaland la yeelanay madaxweynaha federaalka iyo shirar madaxda maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay la yeesheen madaxweynaha iyo mid ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha iyo mid aan kulligeen wada yeelanaynay intaasba ulajeedada ugu weyn oo runtii shirarkaas waxay ahaayeen maadaama muddo la kala maqnaa dalkuna uu marxalad xasaasiya marayay in si qoto dheer looga wada hadlo arrimaha xasaasiga ee jiray aragti midaysanna lagu dadaalo in laga qaato waxaan rabaa anigu marka inaan cabiro shirarkii gaarka ahaa anigu aan la galay iyo kuwii aan aniga iyo madaxda khaasatan madaxweynaha Jubbaland aan la galnay oo runtii aan markii hore saxaafadana loo ogolay haddana aan u aragnay inay muhiim tahay inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntland shirarkii anigu aan la galay labada ahaa madaxweynuhu wuxuu aad diiradda u saarayay in aan kala shaqeeyo ajende dalka uu markaa u dhigayay in doorasho cod iyo qof aan laga qaban karo oo muddada lagu gaari karo aan cayinayn inta ay qaadanayso oo u muuqanaysa in dowladdu ay rabto in waqtiga loo kordhiyo si hadafkaas uu adag yahay in la gaaro in lagu dul shaqeeyo madaxweynaha runtii waan saaxiibnahay madaxweynihii jamhuuriyadda ah waxaan aad u faahfaahiyey marxaladda hadda dalka la marayo inay tahay marxalad xasaasiya ay adag tahay in aan ka shaqeyno waxa ay suuragal ahayn in dalkan uu samato bixiyo dadka Soomaaliyeedna ay soo dhaweeyaan warmurtiyeedkii dowladaha xubnaha ka ah ka soo baxayna ka hor imaanaysa maadaama cid walba ay sheegtay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo dib u dhacna uusan ku imaanin
waxa kaliya oo noo furan waxay tahay inaan ka shaqeyno in sidii dalka doorasho loo gaarsiin lahaa taas oo u noqon karta deganaanshaha siyaasadeed iyo amni ee dalka ka jira fure weyn oo suuragal ka dhigta in dalkani uu horey u socdo arrintaas runtii markii aan aad ugu sharaxnay oo aan aad kala hadlay waxa ii muuqanaysay qanaaco ah inuu madaxweynuhu ku qancay ra'yigaas ah in ay adag tahay doorasho qof cod iyo coda in la qabto shirarkii aniga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne axmed madowna aan galnay saldhigiisu wuxuu ahaa maadaama khilaaf uu ka dhexeeyey dowladda federaalka ah iyo jubbaland mowqifka dowladda puntlandna uu ahaa in ay taageertay doorashadii ka dhacday jubbaland waxyaabaha khilaafka noo dhexeeya dowladda federaalka marka laga tago arrimaha kaleetana ay qayb ka ahayd in khilaafkaas aan soo afjarno marxaladaas oo horay isaguna uu u aqoonsaday in madaxweyne axmed madoobe uu yahay madaxweynaha jubbaland in wixii ka dhashay arrimahaas aan soo ururno runtii dadaalkaas iyo wada hadalkaas waxaan isla afgaranay in dalku uu hore u socdo wixii khaldanaayo horey u dhacayna haddiiba jireen la saxo marxaladda soo socotana si wada jir ah oo midaysan loo wada shaqeeyo kulamadaas xoogoodu inta badan ama kulliba dalabkooda wuxuu ka imaanaya madaxweynaha oo annagana aan u muujinay niyad sami kana aragnay markii horeeto in haddii sharaxaadaas dheer aan u aragnay in uu nala qaatay in ay arrintu sidaa tahay oo dalkii marxalad cusub aan gelino wada shaqaynta aan kordhino dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalku soo dhowaadaan dalka doorasho la geliyo waxyaabaha outstandingka ama taagnaana xal midaysan loo gudbo runtii mararkii kale aan wada joognay sida guudna waxaan aad diiradda u saaraynay mowqifka ku saabsan doorashada oo kulli dadka intiisa badan ay u wada arkayeen in waqtigeeda la qabto doorashada hirgeli kartana ay tahay doorasho ka duwan tii 2016kii ama 2016kii dhacday gaarsiisnayna doorasho qof iyo cod ah oo ah doorasho ka horumarsan kaas laakiin ah doorasho dadban oo habkii loo soo arrimahaas xildhibaanada loo soo xuli lahaa laga wada hadlo madaxweynuhu dood dheer kadib falanqayn dheer kadib waa uu nala qaatay in ay tahay wadada keliya ee dalka u furan inay taa tahay waxaan cayimi weynay nooca ay u ekaanayso oo u baahnayd in la helo farsamo intaa ka qoto dheer waxaan isla garanay in la abuuro guddi ka kooban dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo ka soo shaqeeya kulanka soo socda oo 15ka qabsoomi lahaa ka hor inay keenaan habab ka ugu sahlan ee doorashadaas ku qabsoomi karto oo waqtiga harsanna lagu gaari karo suuragalna ka dhigi karta si markaas dadka kale ay nala khusayso aan ugu gudbino ama hay-adaha dastuuriga ha noqdaan ama beesha caalamka oo badanaa naga taageerta doorashooyinka ha noqdaan ra'yiga runtii shirarkaas xoogoodu meesha ka socday sidaas ayay ahaayeen kulanka ra'iisul wasaaraha aan yeelanay wuxuu dhacay shirkii habeennimadii markuu qabsoomay oo la akhriyay qodobadii ajandaha kadib waxyaabaha u weyn aan xoogga saaraynay maadaama uu ahaa xukuumadda uu madax u ahaa sharciyanna uu u leeyahay fududaynta ama fulinta howlaha dowladda guddigaasna ay tahay inuu xafiiskiisu uu hogaamiyo waxaan ka wada hadlaynay sidii guddigaas waqtiga ugu habboon loogu qaban lahaa nooca guddiga uu noqonayo meelaha ay ku shaqaynayaan iyo sida ugu dhaqsaha badan inaan anaga usoo gudbino ra'yigaasaa ugu badnaa waxyaabihii aan ka wada hadlaynay isagoo ay ka muuqanaysay xamaasad xoog leh oo u hayo sidii qodobadaas shirka ka soo baxay loo fulin lahaa runtii halkaas waxaa aada uga muuqanaysay guud ahaan dadkii shirka joogay oo dhuusamareeb ku sugnaa iyo didiila u muuqanaysay marxalad dadka Soomaaliyeed ay aad uga walwalsanaayeen oo doorashadu inay qabsoomayso inay soo afjarmi rabto in dalku uu marxalad cusub uu geli doono oo wada shaqayn dhow ah
runtiina iyadiiladaas ayaa anagu ruuxadeena niyadsamidaas ayaan waxaan ka ahayn qayb waxaanan u qaadanay in ay dalku wadada saxda ah u mari doono runtii maalintii shalay ahayd oo aan dhuusamareeb ka soo safarnay oo annaga ruuxadeena ajandaheennii sii ballaarinay oo inaan wadada marno aan jeclaysanay oo aan degaamada kale sii aragno oo nabadii iyo wadajirkii iyo dowladnimadii dalka guud ahaan lagu baahiyo madaxweynaha axmed qoorqoor oo uu dhalay yimid in la cadaado maanta war kama hayo internetyada aan go'naaye qorshuhuna uu ahaa inuu madaxweyne waare ilaa iyo matabaan uu la gaaro arrimahaas oo runtii aan ku ammaanayno dowladda galmudug oo martigelinta iyo sida ay nabadda u sugtay iyo sida ay uga shaqaynayso dadku isdhexgalka wasiiradii nala socday inay booqdeen magaalooyinka galmudug cadaado waxaa la tegay guraceel qaybbaa waxay tagtay magaalooyinka kaleeto ee maaragtay galmudug waxyaabahaasoo dhan waxay abuureysay isdhexgal iyo aragti kala duwan iyo in maamuladii meel ugu yimaadaan muddo 2 isbuucna ay meel ku wada noolaadaan runtii waxay ahayd iyadiilo hor leh oo aan ka qabnay in Soomaaliya marxalada la soo dhaaflo kala taagnaanaha laga gudbi doono runtii maalintii shalay ahayd bishu 25 ahayd waxaa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu silsilaal siyaasadeed ahaa oo anagu aanan filanayn ka Puntland ama shakhsiyan xogtiisana aanan war u haynin laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacay doodo badan aan ka galnay noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagal daacinayo oo la rabo in lagu burburiyo arrintaas waxaan runtii mas'uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda maxaa yeelay wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay habeenkii shirku dhacayna anagoo la nimid niyad sami khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhaweyn ah khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha uu aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajandayaal kaleetana u wato waxaan aada uga xumahay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed u caddeeyo aniga oo dowladda federaalka ah muddadii aan hadda wada shaqaynayno ay aada u fiicnayn kalena saaraynin madaxweynaha iyo prime ministerka laakiin muddadii hadda aan galmudug joogno waxa ay muuqanaysay prime ministerku inuu diyaar u ahaa wixii lagu heshiiyey inuu fuliyo uu nagala hadlayay weliba waxyaabaha ay sida u fuli doonto uuna u hayay in dalku doorasho uu gaarsiiyo waqtigeeda ku dhacda oo suuragal ah oo u muuqata midda qof walba uu filayo oo ah doorasho dadban inuu qanaacadaas qabay xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya ay dowladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo cidda ka qaaday oo arrintaa ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyey inaysan daacad ka ahayn oo ay ajanda kala wadatay waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka cadeeyo baarlamaanka wixii shalay uu sameeyay waxa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra'iisul wasaaruhu xilku waa meerto shalayba waa la magacaabay baarlamaanka ayaa ogolaaday baarlamaankuna awood buu u leeyahay inuu ka qaado laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la eedeeyo ra'iisul wasaare in xukunka looga qaado waxaa iyadoo oonan eedayn loo soo jeedin iyadoo ajandaha aan lagu darin iyadoo oo aanan loo codaynin ayuu gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaaday waxaase cajiib ah oo ka sii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaas sharci darrada ah oo ay muuqato in uu buriyay qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay waxaa intaa ka daran isla waqti yaroo kooban madaxweyne ra'iisul wasaarihi oo dhuusamareeb ka tegin inuu wareegto ku soo saaray in uu xilka sii hayn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo cadeynaya marka uu ra'iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee la soo magacaabay
inuu wareegto uu xilkii uu ku wareejiyo ra'iisul wasaare ku-xigeenku iyadana waa qodob dastuuri ah oo la dumiyey oo runtii halis keenaysa marka arrimahaas la isku daro haddana wuxuu ku caddeeyey in uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka hadda uu magacaabay oo xukuumadda dhacday ka mid ahaa uu sii wadi doono shirkii dhuusamareeb isagoo ilaalinaya xeerka doorashada iyo dastuurka waxa ugu weyn oo xubnaha dowladaha federaalka ka mid ah ay dooda ka qabeen waxaa ka mid ah sharciga doorashada ee hadda baarlamaanka oo ansixiyey oo runtii mugdi badan ku jiro una habboonayn in doorasho qof iyo cod lagu galo oo marar badanna puntland mawaaqifteeda ay hore uga caddaysay marka intaa la isku soo horiyo waxaa aada u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo wuxuu caddeeyey in uu wareegto uu rabo inuu ku maamulo wuxuu caddeeyey inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamayn oo uu ku tumanayo mawaaqiftaas marka aan darisnay dowladda puntland waxay shaki gelinaysaa ku dhaqanka xeerarka iyo dastuurka dalka u degan dowladda puntland waxay si adag u diidaysaa wixii halkaa ka dhacay oo runtii ay u aragto in lagu majaxaayinayo shirkii quruxda badnaa oo runtii walaalaha dowladda galmudug ay guud ahaan shacab iyo dowladba ay wakhtiga badan ku bixiyeen oo culays badan uu ku fuulay oo runtii iyaga oo curdin ah oo dowlad cusub ah oo aanan caga dhiganin iyo magaalada oo muddo runtii ay dowladdu ku shaqaynayn ay dhabarka u riteen oo aanan uga mahad celinayna soo dhoweyntii quruxda badnayd iyo siday isu xilqaameen ka dhacday in uu xagal daaciyey dadaalkii dadka reer galmudug ay ku bixiyeen inuu shirkaa qabsoomo una muuqanayo hadda waxaan u dhaceen oo dhan ay tahay in lagu diidanaa shirkii loo ballansanaa 15 agost in lagu qabto dhuusamareeb mar labaad iyo in guddigii farsamada uu keeno wax dadka Soomaaliyeed ku heshiin karaan arrintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan u cadeyno in ay dowladda Puntland la tashi badan oo aan sameynay xogogaalnimo badan oo aan ognahay inaanan raalli ka ahayn sida wax u socdaan aan ka digeyno dalka meesha uu ku socdo oo keeni karta kalsoonidii la dhisayay iyo dowladdii geedi socodkeedii la dhisayay iyo wanaagii laga shaqeynay inay dhaawac weyn u keento oo ay mugdi geliso dalka meesha uu ku wajahay waxaa iyadana runtii nasiib darro ah dalka Soomaaliyeed oo muddo badan ku tiirsanaa dadaalka ay ku bixiyaan beesha caalamka sida ay u garab taagnaayeen sida ay dowlad dhiskeeda xagga amniga xagga sharciyada xagga dastuurka xagga horumarka hay-adaha dowladda gacan xoog la ka geystay haddana Soomaaliya ay u socotay inay u sii siqdo dowlad buuxda oo maxaafisha dowladaha caalamka fariisata oo u leh access ama galaangal u leh in ay la macaamisho hay-adaha waaweyn ee dawliga sida IMF iyo World Bank oo rajo weyn laga qabo in deen cafintii iyo horumarkii dowladnimada ay hana qaado in ay maanta runtii ay ku riday go'aanadaas iyo tallaabooyinkaas madaxweynuhu uu qaaday oo ka dambeeyay niyad jab xoog leh oo khatar ay u jirto Soomaaliya inay dib u noqoto taageeradii dhaqaale iyo amni laga galab taagnaana oo xiriir galo arrintaas marka waxay horseedi kartaa Soomaaliya inay khatar ku soo wajahan tahay waxaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ugu baaqaya in marxaladan xasaaska ah loo fiiriyo sida dadka qaybtiisa u eegayaan si ka mug weyn waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra'iisul wasaare tagay iyo ra'iisul wasaare la keenay oo xusul duub loogu jiro cidii noqon lahayd arrintu ma aha ra'iisul wasaare baxay iyo ra'iisul wasaare yimaad oo ay dhici jirtay haddii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaas ahayn dibna ma keenteen laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah iyo mas'uuliyiinta dowladaba wixii dhacay waa dhaceen caana daatay dabada la qabtaa khaladka cidii gashana inay qaadato aqligu inuu soo noqdo dalka meesha ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo waan ka xumahay niyaddii wanaagsanayd ee dowladaha iyo dowladda Puntland ba ay haysay in dhabar jabin lagu sameeyo
waxaan madaxweynaha dowladda federaalka ah baaq ugu dirayaa inta dhiman inuu dalka uu u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin caalamku uu dhagaha ka laabto bulshada Soomaaliyeed ay ka niyad jabto dowladuhu xubnaha ka ah ay aamin ka baxaan dowladda federaalka shuruucda iyo dastuurka dalka la ixtiraami waayo qof walbana ay uu sameeyo sida la haboon dalkana dib loogu celiyo xilliyadii aan shuruucda iyo dowladnimada ka jirin oo u sababta habkii loo dhaqmi jiray inuu sharcigu qof walba gacantiisa ku qaato intaas waxa weeye waa dareenka dowladda Puntland dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo waxaan uga mahad celinayaa beesha caalamka runtii muddadii dheereed ee dalka Soomaaliyeed garab taagnayd waxaan ka raali gelinayaa khaladaadka dadka Soomaaliyeed ay mararka qaarkood galayaan oo keeni kara niyad jabka kuna abuuri kara dhaqaalihii faraha badnaa ay dalka ku bixinayeen in uu ku keeno niyad jab waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay bedesho aragtideeda siyaasadeed dadka Soomaaliyeed marxaladda uu marayo weli wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed inay keligood isku dayin oo markay wax dhacaan aysan ka daba tegin waxaan ka codsanaynaa in ay kaalin mugle ka qaadato sidii dalkan looga saari lahaa marxaladdan aysan ku sii dayn madax Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u yimaada mararka qaarkood in ay waxay doonaan sameeyaan waxaan uga mahad celinayaa dowladda Mareykanka iyo EU-da qoraalladii ay soo saareen waxaan ku boorinayaa dowladaha kale ee dalka taageera inay mawaaqif cadcad ka yeeshaan dalkan hantidii gashay oo caalamka ka gashay inaysan khasaarin Soomaaliya oo ku taal geeska Afrika oo ah juqraafiyan meel aad muhiim ugu ah amniga iyo deganaanshaha qaaradda Afrika iyo adduunkaba in gacan weyn laga geysto sidii dalkan loo xasilin lahaa amnigiisa looga shaqeyn lahaa wixii la soo qabtayna ay dib u noqon lahayn marka waxaan rajaynayaa Soomaalida iyo beesha caalamkaba inay ahmiyadii hore la siin jiray mid ka weyn siiso hadalka aan jeedinayno Puntland ahaan waxa uu ka dhigan yahay khatar aan dareemayno oo aan rabno in laga hortago aad baad mahadsan